Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa markii ugu horeysay la siiyey kombiyuutar isagoo 9 jir ah. Wuxuu kombiyuutarkaasi ahaa mid duqoobay oo aanan shaqaynaynin, balse wuxuu jecel u qabay inuu meel sare ka gaaro tiknoolajiyadda. Wuxuu markii dambe noqday qof wax uriya oo shaqo abuur sameeya, sidoo kale wuxuuna ka taajiray arrimaha tiknoolajiyadda. Ninkan wuxuu yaraantiisa soo maray nolol adag, weligaa duruuftaada yaysan ka turjumin waxa aad tahay. Haddaba ninka aynu ka hadlayno waa Freddy Figure, oo ah ninka yaraantiisa laga soo helay god qashin oo hadda ka mid ah milyaneerada caalamka. Haddaba waxaynu ka hadli doonaa sida uu gaaray heerka uu maanta joogo. Kanaalku waa horumariye, aniguna waxaan ahay Ayuub Cabdikariim. U soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Assalaamu calaykum. Freddy Figure wuxuu dhashay 1989-kii. Hadda waa 31 sano jir. Markii uu 8 sano jirka ahaa, wuxuu noloshiisa ka wareystay aabihii, gaar ahaan dhalashadiisa. Aabihii wuxuu igu yiri, hooyadii ku dhashay way ku turtay, anigii beyti ma aanan jeclayn in aan ku geyno xarumaha lagu daryeelo carruurta. Balse waxaan go'aansanay in aan ku karsano, wiilkayga ayaa tahay. Freddy ayaa la tuuray isagoo cunug yar, waxaana lagu riday container qashinka lagu tuuro oo yaalay gobolka Florida ee Mareykanka. Aabihii ayaa igu yiri, markaad waxa ahayd sidii qashinka, garabka ayuu i qabtay. Wuxuu igu yiri, wiilkaygii dhageyso, arrintaasi waxba u qaadanin. Aabihiisa Nathan Figure wuxuu ahaa fundi, halka Mia Figure ay ahayd beeraley. Waxay ku noolaayeen deegaan miyi ah oo ku yaala waqooyi gobolka Florida. Xilligaasi waxay ahaayeen 50 sano jir, waxayna ahayd sanadkii 1989 oo ah xilligii uu Freddy dhashay. Waxay labadooda soo korsadeen Freddy oo 2 maalmood kaliya jir ah. Waxay u soo korsadeen sida cunug ay dhaleen oo kale. Freddy wuxuu sheegay in wax kasta ay siiyeen Nathan Figure iyo Mia Figure. Carruurta ayaa i waabsan jirtay, waxay igu yeeri jireen cunugii la soo tuuray, wiilka qashinka, wax kuro ma lahan, waxaa tahay wasakh. Xitaa wuxuu sheegay in waagii uu iskuulka dhiganayay ay carruurta inta ay qabtaan ay kadibna ku ridaan konteenarada qashinka, isla markaana ay ku qosli jireen. Maalmaha fasaxa waxay Freddy iyo Nathan gaari jireen goobaha qashinka lagu soo daadiyo. Waxay ka raadsan jireen waxyaabaha la soo tuuray ee laga yaabo inay isticmaali karaan. Markii dambe Freddy ayaa qashinka ka dhex helay kombiyuutar. Waxaa jirtay maama oranaysay, qashinka uu soo tuuro qof wuxuu hanti u yahay qof kale. Wuxuu sheegay inuu si weyn u jeclaa culuumta kombiyuutarada. Wuxuu ku hawlanaa ururinta qalab ay ka mid yihiin raadiyaha iyo saacadaha, kuwaasi oo ku caawin jiray ninkii soo korsaday. Wuxuu sheegay in markii 50 jeer uu isku dayay in uu shido kombiyuutarka uu markii dambe ku guuleystay. Talaabadaasi waxay u horseeday in noloshiisa uu ku qaato ka shaqaynta tiknoolajiyadda. Wuxuu sheegay in damaciisu ahaa in uu meel ka gaaro cilmiga kombiyuutarada. Xitaa wuxuu ka fikiri jiray in uu ku ciyaaro kombiyuutarkiisa marka uu iskuulka jiro. Freddy wuxuu ahaa 12 sano jir markii la ogaaday cilmigiisa. Wuxuu ku mashquulsanaan jiray hagaajinta kombiyuutarada halaabay ee iskuulka markay carruurta kale iska ciyaari jireen. Agaasimihii qaabilsanaa waxbarashada iskuulada wuxuu ahaa duqa magaalada ay deganayeen ee county. Markii uu arkay in Freddy uu hagaajinayo kombiyuutarada, wuxuu ka codsaday in uu waalidiintiisa uu la yimaado hoolka maamulka dowladda hoose. Markii uu gaaray hoolka, wuxuu tusay 100 kombiyuutar. Wuxuu ku yiri, in aad hagaajiso ayaan rabaa kombiyuutaradan. Freddy wuxuu maalin kasta hagaajin jiray kombiyuutarada, halkii saacba wuxuu ku qaadan jiray $12. Wuxuu sheegay in uu rabay lacag, balse uu raadinayay fursad uu ku qabsado waxa uu jecel yahay. Sanado kadib waxaa soo baxday fursad lagu hagaajinayo barnaamij wax looga qabanayo waaxda biyaha ee magaalada county. Shirkad ayaa soo bandhigtay in $600,000 ay ku baxayso hagaajinta barnaamijka. Freddy wuxuu soo xasuustay in uu maamulihii magaalada waco, kadibna uu sheego in uu ka caawin karo shaqadan.
markaa waxay i siiyeen shaqadii. Waxaan sameeyey barnaamijkii, gaar ahaan nooca ay rabeen ayaan u soo bandhigay. Ma aysan i siinin lacagta $600,000, balse waxaa la i siin jiray lacag joogto ah, guriga ayaana iska aadi jiray. Waa horumar weyn oo uu gaaray Fridi xilligaasi oo 15 sano jir uu ahaa. Wuxuu go'aansaday in uu isaga tago waxbarashada si uu u bilaabo ka ganacsiga cilmiga kombiyuutarka. Tallaabadaasi oo ay ka naxeen waalidiintii soo korsaday. Wuxuu sheegay in waalidiintiisa ay ku qanacsanaayeen inuu wax barto si uu mushaar u qaato, balse isagu wuxuu hamigiisu ahaa in isbeddel naadir ah uu la yimaado. Ganacsiga Fridi ayaa maalinba maalinta ka dambeysay sii ballaaranayay. Fridi wuxuu ahaa 24 sano jir markii uu geeriyooday Nathan bishii January 2014. Waa arrin qalbi jab igu reebtay, sababtoo ah waxaan doonayay in aabbahay aan ka farxiyo, ayuu yiri. Fridi wuxuu $2.2 milyan ku iibiyey qalabka la socodka dhaqdhaqaaqa bini'aadamka ee uu ikhtiraacay, wuxuuna sugayay in loo dhammaystiro lacag ka maqnaa. Fridi wuxuu bilaabay hirgelinta mashruuc weyn oo ku aadan sidii uu internetka ku gaarsiin lahaa qaybo ka mid ah deegaanada miyiga Mareykanka, maadaama deegaanadaasi aanan laga heli karin adeegga internetka ee 2G iyo 3G. Wuxuu doonayay in la helo adeeg isgaarsiin oo casri ah oo la gaarsiiyay deegaanada miyiga. Sanadkii 2008 wuxuu codsi u diray guddiga isgaarsiinta federaalka Mareykanka si uu helo ruqsad uu ku bilaabayo shirkadda ganacsiga uu isagu leeyahay, taasi oo qaabilsan isgaarsiinta. Wuxuu marar badan isku dayay in uu samaysto shirkadda tiknoolajiyadda, balse sanadkii 2011 Fridi oo 21 sano jir ahaa wuxuu noqday qofkii ugu daada yaraa ee iska lahaado shirkad qaabilsan isgaarsiinta. Shirkadda isgaarsiinta ee Figure waxay noqotay shirkadda kaliya ee qaabilsan isgaarsiinta ee uu leeyahay qof madow ah. Waxay shirkadiisa adeegyo gaarsiisay deegaano miyi ah oo dhaca waqooyiga gobolka Florida iyo koonfurta Georgia. Shirkadiisa ayaa si weyn u sii ballaaratay. Sanadkii 2014 Fridi wuxuu hirgeliyay adeegga casriga ah ee Figure F1, kaasi oo la soconaya dhaqdhaqaaqa socodka ee Safe Mode, kaasi oo dadka adeegsanaya taleefanada qaar ka hor istaagaya in ay fariin u qoraan xilliga ay baabuurta kaxeynayaan. Wuxuu leeyahay hay'ad maalgelisa waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka, isla markaana caawisay qoysaska iyo carruurta tabaalaysan. Waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iideen. Fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay, subscribe saar.